السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kusoo dhawaada Abna Official. insha Allah muuqaalkan waxaan kaga sheekeyn doonaa khulaaso kooban oo ku saabsan bangiga adduunka ama World Bank. fadlan channelka haddii aad ku cusub tahay waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe saarto hadduu alla idmo insha Allah. haddaba aan ugu galno mawduuceena. bismillah. waxaa la aasaasay bangiga adduunka 1944. kooxda bangiga adduunka waxay la shaqeeyaan hay'adaha caalamiga ah, bangiyada gobolka iyo dowladaha qaranka si loo yareeyo saboolnimada. ururka wuxuu ka kooban yahay qeybo badan oo kala duwan, laga bilaabo dhaqaalaha iyo waxbarashada ilaa iyo isbeddelka cimilada. 70-kii sano ee lasoo dhaafay waxay caawisay dad ku nool in ka badan 100 dal oo soo koraya. doorka bangiga adduunka waa inuu wax ka qabto fashilaadaha ku jira suuqyada caalamiga iyo inuu soo afjaro saboolnimada. waxay bixisaa deeqo, amaah, maalgashi, sidoo kale talo iyo tababar. waqtigan la joogo waxay ka badan tahay 10,000 oo shaqaale, waxayna ka kooban tahay 5 hay'adood oo ay ku jiraan hay'adda caalamiga ee maaliyadda loo soo gaabiyo IFC iyo bangiga caalamiga, hay'adda caalamiga ee dib u dhiska iyo horumarinta ee loo soo gaabiyo IBRD. ururka bangiga adduunka wuxuu ku lug lahaa in ka badan 12 mashaariic horumarineed tan iyo markii la aasaasay. waqti xaadirkan hadafkeeda koowaad waa in la yareeyaa heerka saboolnimada ba'an ee adduunka oo ka badan 3% markii la gaaro 2030 in halaas soo afjaraan. shaqada kale ee bangiga adduunka waa inuu dhiirigeliyaa joogteeyaa deegaanada iyo koritaanka cagaaran ee wadamada soo koraya. intaa waxaa sii dheer, xubnahooda waxay ka faalan qaadaan oo ay ka qayb galaan shirarka iyo dhacdooyinka kale ee wax looga qabanayo caqabadaha horumarka adduunka. waqti xaadirkan shaqada ugu weyn ee bangiga adduunka waa inuu siiyo amaah muddo dheer ah iyo caawimaad dalalka soo koraya. lacagtani waxay taageertaa maalgashiyo kala duwan oo laga sameeyo dhammaan qaybaha oo ay ku jiraan waxbarashada, tamarta, ganacsiga iyo horumarinta magaalooyinka. ururku wuxuu kaloo fududeeyaa isdhexgalka joogtada ah ee deeq-bixiyayaasha, wuxuuna sameeyaa daraasado ku saabsan arrimaha dhaqaalaha iyo nidaamyada adeegyada bulshada. faa'iidooyinka kale ee bangiga adduunka waxaa ka mid ah kaabayaasha dhaqaalaha oo ka wanaagsan uu ka wanaajiyo dalalka soo koraya, adeegyada hufan, canshuur dhimista, ganacsi xor ah iyo horumar bulsho oo intaas ayaa kusoo gabagabeynaynaa. fadlan haddii channelka ku cusub tahay subscribe saar insha Allah si ay kusoo gaaraan muuqaaladeena cusub. mahadsanidin.